waxbarashada ayaa laga dareemayaa guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah u ah maamulka Koonfur Galbeed. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ay isugu jira wasiirro, xildhibaano, odayaal dhaqameedyo, bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadda dahafurka qaybta barashada luqadda Ingiriiska Jaamacadda Horseed University oo maanta laga dahafuray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulka Jaamacadda Horseed University oo si aad ah u faahfaahiyay qaybta barashada luqadda Ingiriiska oo maanta la dahafuray iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada jecel waxbarashada ee ku nool magaalada Baydhabo. markaas awoodeeda una baahna dadka oo deegaanka ka jeeda unaana muhiimada un walaan baranayna may baa dadkana iyo deegaankana inay una hormariyana sidii unu masterka aan ka fikirnay in oo deegaankan ka hergelina ya hadana may baan ka fikirnay in luqadda la ka kordhiye qaybta oo luqadda la ka kordhiye jaamacadda Horseed taasoo oo dhabarkan saardan madaxda jaamacadda marka ardaydaana may balana eediyada aan ka faraxsanaa jaamacadda Horseed qaybta masterka may baa ka shaqeeyay 3 sano iyo in ka badan 3 sano iyo dhamaatay 3 sano iyo wali jar iyo hadana in socota marka hadana arday badan oo isdiiwaan gelisay jarta qayb galeen isdiiwaan gelintiya socota qof kasta oo daneeyona may balana ha ka qayb gal diiwaan gelinta socota bilowna bilowdaas waxa aad ugu faraxsanahay iyadoo xilligan la joogo roobna uu daay in soo dhibteen oo timaadeen waan idinkaga mahadcelinaynaa ahmiyadda ugu weyn waa laga hadlay 2 eray bas iyo 3 ku dar doona ta ugu horeyso qof ka hadla ma arkin waxa noogu qoran wasiirka hadda joogo afmaayan ku soo qornay waxaan filayaa xafladaheena kale saasoo kale in afmaayan ku soo qori doono boardkeena meesha maxaatir lagu soo qor lahaa insha Allah jaamacadda Horseed way bilowday way sii bilaaw doontaa si luqadeena u horumarin dhanka kale muhiimadda aan u sameynay xafladan waxay tahay of course inaan dadku soo bandhigno hawsha aan qabanayno iyo waxa ku soo biirinay jaamacadda oo ah qaybta luqadda taasoo codsi ka yimid deegaanka markaan masterka bilaawayna 3 sano hadda ka hor dad badan naga niyadjabinay waxay dhahayeen dadkaas walma baradayaan bees ma dhiibayaan hay iska dhaafo laakiin juhdi iyo dhiiranaan aan soo sameynay yaa sameeyay waxa aad ugu faraxsan arday badan oo inta fadhiso qaarkood aqaan inay maanta 100 iyo ka badan jaamacadda ka baxeen dad Soomaaliyeed ee wax bartay waaye qaasatan anaga farxad gooniyeen oo dad deegaankeena wax bartay waa sidoo kale anaga dhan waa ogsoonahay hadaan farxiya ka dhawaajisay luqad qalaad yaa wax ku baranaa baahina way jirtaa oo meelaha qaar marka ka qayb galno sida maayga maxaa tira ugu hadli karno inaan marka ka faa'iideysano waxa ahayd wali waa la soo daanay ama dad kale inay keenaan xilli hore inaan bilaawno ahayd intaasi kadib waxaa si toos ah u dahafuray isla markaasina khudbad dhinacyo fara badan taabanaysay goobta ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdifataax Samaale marka dhinaca maalgelinta waxbarashada dadka deegaanadan kuma qonto may bacodsadaan intii lika dhiirida dadkana qarashkaas ay dina ogolaadan waana la dhiibay si oo deegaanka dadka walaalaha saaray human resource human capital development hooba dadkaas ay tuunan dhisna deegaanka de mahagaaga Koonfur Galbeedna si leh mugdan hadas wal isbedelo ilaahay abuuray ma leh daayir amiin jeeso leeydad bubursade marka may codsadaan intii qarash lika bi waxbarashadii la hormariyay may ba anoo ku faa'iideysado munaasabada macadkan indaha furunye dadkii ku faa'iideysada lahay isin dadka kale ma qongo qof kasto deegaanka rogo ma aragnay aan araga luqadaasaytii waa baahanyaa qof kasto inay dareemahayna intii ku faa'iideysado waana seeda isdiiwaan geliya codsadaan hadii ilaahay